كيلو وارجبتن صور دجان سأنا إسكو صور دجين سوا جبت يديه حيد حالتنا بحيد كخلدن حتى عني كي جبت قوي ولا سؤال ديهم بحيد هالشيء كذا أنا يسني عمر كانوا يسني يا وام حي أيبا دور سيجارو بس اللي سودي وأروح أنا جو حانو كده قلنا والصبح قاري جيو حساب حنقع عليه وحنو عبر مية لدين كريه مركان كي بنو نقول نكليف كسمعنا إيه خوينا لما نولد والله نولد أوكي إن شاء الله إن أصحابته قفل بكل كم تجارو سودي بنيه حركتي ساب سودي بنيه ورشنا كنا هلا قصة بيرو هلا ترى متين وذي وين صالح فريستي kusoo dhawaada YouTube channel ka Highmark waxa maanta martino ah mid kamid ah xidigaha TikTok Cabdi Cali Khan magaciisuna waxa weeyaan waa Jamaal Cabdi soo dhaw aad baan ugu dhawahay walaalkay wandhawahay goorma TikTok bilowday sayay kugu dhiirigeliyay inaad TikTok bilowdo walaal TikTok waxaan bilaabay 2021 bishii 3aad 16 meelahaas ahayd waxaan ahayn markaa asxaab baan ahayn inaan imika Belarus jooga oo aamin la yiraahdo inaan oo saaxiibna oo kaysar la yiraahdo intayada sunba isku daynay inaan bilowno TikTok sidaasaan ku bilowno sideed u xalisaa negativity-ga kaaga imaada social media niyo wallahi tii wax kasta positive iyo negative way leeyahay marka barnaamij wax kasta oo bilowdaa positive iyo negative way leeyahay haddana mar walba waxa la eegaa waxa negative ka waxa lagu ilaawaa wixii positive meesha jooga marka waxaan ku ilaawnaa positive ka marka wixii negative waana siyaabahan u xalina wixii negative marka Cabdi ma yahay qof u nugul negativity-ga kaga imanaya social media may xagga negative ka dad baa jira commentiyada magarasa marka comment akhriyaan markiiba negative ka soo dhex saaro magarasa ayka adigu ma yahay marka qof negative ka u nugul oo waxaan wixii negative hadal ka soo saar ma nugli marka Cabdi masleedahay caanimadu waxay leedahay dhibaatooyin badan niyo wallahi qof walba horta waa waxaan sidoo adeegsada anagu waxaan nahay dad comedy soo gudbiya wallahi inta wanaagsan u baan kula kulanaa anagu dad fara badan u baan isbaranay ma sha Allah aniga xaggayga barashun bay iga tahay waa wixii wanaagsan weeyaan wax xumaana kama arkin wali wanaagsan tahay maxaad kula talin lahayd dhalinyaro badan oo waxa jira jecel inay majaalkaaga soo kala bilaabaan ama ay dadka ka qosliyaan maxaad kula talin lahayd se garan la meesha ka bilaabi lahayd wallahi horta waxani waxa weeyaan waa barnaamij waa barnaamijka la timaadon weeyaan haddii ma garanaysaa horta waxaan kula talin lahaa wixii dhaqan wanaagsan ee diintuna oo gashay ummaduna ay ka helayaan haddii qofku inuu eegana boosaska banaan social media marka soo galisa boosaska la eega waxa boos banaan kadibna ay boosaska ka yara fikiraan boosaska muhiimka ah ee ay bulshadu u baahan tahay ay soo kordhiyaan boosas fara badan baa banaan oo ay gali karaan marka haddaad wax wanaagsan wadaan welcome ballan soo dhawaada visionka iyo missionka ka leedahay TikTok maxay tahay insha Allah inaan meel sare ka gaarno oo intaan aanu haysano 4 laabkeed iyo 5 laabkeed inaan noogu soo beeraan insha Allah macna socialka TikTok ka malihin xagga YouTube-yadii page-ka adigu insha Allah inaanu halkan ka sii hore uga sii socono insha Allah aan maanta taagna Cabdi Cali Khan muxuu jecel anigu wallahi waxaan iska jecelahay waxyaabaha waxaan jecelahay garan maayo adigu waxaan iska xiiseeyaa wixii hadda cusub imika oo cusub ee banaana wixii hore laga tagi maayo waxa hadda cusub baan xiiseeyaa xoog jecel yalahay Cabdi Cali Khan xiriir malay xiriir naftu xiriir way iskaga baahan tahay su'aasha barefsi baan uga jawaabay iyadoo barefada ku sheegay insha Allah okay jacaylka maxaad ka aaminsantay wallahi horta jacaylka horta Soomaalidu jacaylka way xadkii loogu talagalay macnaa way dhaafeen sidaan oo arkay macnaa jacaylka waxa weeyaan waa laba qof oo isaaminay oo isdoortay haddii labada qof mid ka mid been sheegana burbur baa yimaada haddii sidii loo rabay ay u dhacdana jacaylka saxda ah soo baxa marka jacaylku waa laba qof
oo isaamino ma jeclaan lahayd duni dabeecadaada kale inaad ku noolaato may waayo aad baan u dabeecad xumay anigu marka dabeecadda la eegay aad baan u dabeecad xumay waabana is wada laynaynaa kuwa marka may ma xiiseeye cabdi caqabadihii ugu waaweynaa aad kala kulantay markaad tiktok bilaabaysay maxaa ka mid ah wallaahi tiktok markii ugu horreyseen bilaabayay caqabadahan kala kulmay waa inaan samayn kari waayaba meel aan kasoo galaba tiktok barnaamij meelaad ka soo gasho meel aan kaga soo galaba barnaamij kastaba laygu meel aan ka soo gala maxaad uga jeedaa ma telefoon aan ka isticmaalo maya barnaamij aan bixiyaba okay markaad maanta doonaysa inaad tiktok soo gasho tiktokti waana isticmaashaa mana garanaysid barnaamij aad qabataba barnaamij aan kuba dhawaaqo oo aan idhahdo barnaamijkaasaa ii gaara hadda imika barnaamij baanu sameynaa suqro yaroo kale waxaanu ka dhignaa qof caqli badan anigoo kale waxaan iska dhigaa qof ay suqri ka caqli badan tahay nukudhoo kale wuxuu iska dhigaa waa macalinkii marka waa barnaamij meel u jeeda marka waxay iigu darnayd laba mar bay adigu tiktokta iigu darnayd mar aanan haynin qalab aan ku duubno iyo markaan waayaba meel aan kasoo galo barnaamij aan bilaababa oo dhahda kaasaabad bilaabaysaa labadaa jeer baabay aniga caqabada ugu weyn ay tiktok iga soo martay laakiin alxamdulilah iyo kaa caawiyay qalabkaad ku duubto tiktok wallaahi qalabku waxa weeyaan waa mobilkaygaas tiktoktu qalabba uma baahna waa mobilkaagaas mobilkaasaa naga caawiyey aan ku duubnayno hadda hayno maasha allah ruwaayadahaad samaysaan yaa qora waa su-aal muhiima aflaantan aanu sameyna anigeenu ku dhuun baa qorna oo isku keena oo isla qaadaa dhigna anigeenu ku dhuun baa aflaantan qorna gacanta ku hayn inta groupka kula matala asxaab baad tihiin mise waa familiga groupka ila matalaa iyagoo isku dhan miya groupka horta ila matalaa waaba 4 qof weeyaan waa aniga suqra nukudha iyo gacanta yar family baan waa xaafadii baa isku wada timi waa dhamaan wada walaalaha inta la wada doon gacanta yar ma codkeeda mise waxa weeyaan mixer baa la saaraa iyo waxaas gacanta yar waa wax la isku habeeyay weeyaan codkeedii hawa yaroo dhex socota laakiin codkeeda u badan waxaan arkaa mararka qaarkood adigoo heesaya weliba codkaagu maasha allah aad u qurux badan yahay ma jirtaa hees adiga si gooniya kuu saamayso ama dareen gooniya kugu leh markaad dhegaysto ama aad qaadayso iyo hees waxaa jirta heesta hana socodka laafiyaha heestaasaan xoog yara dhegeysta xataa markan qaaciyada yar aan isku yaradaya habeenka fanaanka yara qarsoona heestaasaa ka yara tuurtaa oo heesta hana socodka laafiyaha ma noo qaadi kartaa heestaas aniga iyo daawadayaashaba waxa weeyaan hanaan socodka laafiyaha hagarlii wax qabashada hindiseeya faallada soo habcelinta sheekada haddaan caana lagu habin ama hooyadeed korin ma haysee asluubta hidabtiyo xishoodkee waxaa kugu habboona istaare waxaa kugu habboona istaare ado xaafadii hodahan jidka fooqa hoos maraha hareerihiisa ubaxalehe habeen ciida ay tahay adigoo hidaha xidhan hoteelkii taleex baahan macankugu casuuma maasha allah cod baa ku jira fankama waxaad u geli lahdood is leedahay fanaaniin badan baad beriska ciidinaysa haddaad fanka gasho mise niyow anigu fankan waaba ka baqaaba maalin allaaliya maalinkan silahda galba system unba khaldaba adigu iminka 3 processoo 3 jeeroon isiri galba adigu 3 system oo yara waaweyn baa dhacay adigu ma iminka sidii hore kubay ma laga yaabaa dad bilowdo aad fanaan noqoto inaad fanaaniin badan beriska ciidayso ama aad noqoto boqorka codka 2024 ama 2025 niyowde iminka niyowde horta way jiraan dad fara badan oo iga cod macaan
haddii de maanta ma odhan kara dee waaba nagu codbacanaan karaayo dad fara badan oo fanaaniina jira laakiin waxaan isleeyahay wax waad la qaybsan karaysa haddii aan halkaa fakale isku day saasuu bal isleeyahay maalmihii ku soo maray maalintee ugu hawl badnayd ama kuugu adkayd ood istiraahdo ilaahay dib uguma soo celiyo ni horta dhowr cisho dee way ugu hawl badnaayeen laakiin aniga si ahaantayda maalin baaba igu sii weyneydba maalin aan xaafadana ka yara maqnaaba ahayd kadib show meelaha 12 habeenimo midaaro sii soo dhigay anigii gabadhisku kaay soo dhigay show TikTok buu soo galiyay anna waan hurtaa subaxii baa la soo garaacay telefoonkaygii baa jaam noqday marka show videoga noo qarxo dhowr boqol kun buu maraya meelaha afar hawr buu ku marayay 700 kun qofkana Cabdi Cali Khan baa ugu qoran subaxii bay hooyay soo garaacdo TikTok daawanaysa wato warxay dhaxalayna waan maqleen aroosna waan arkayaa ay baxaa jira dhammaan dadkii way soo wada garaacay oo waad guursatay waad mehersatay waniyo maalinkaas horta igu la yaabadnay markii dambana mid aanu saaxiib nahay baa waxa dhacday isaguna intuu ciyaar ahaan intuu soo qaatay ayaa anigii gabadhii statuskiisina soo dhigay saaxiib meher wacan gabadhina waxa ninkana waxa ugu jirta gabadha is garanayaan gabadhan la soo dhigay meesha gabadhana show muddo 3 sano ka hor la guursado laba carruur ay leedahay deetaadigu ninkii siduu soo ahaada nin baa soo garaacay kuuri war gabadhan aad soo dhiganaysaa in isku soo dhijinaysaa waa gabadhaydii maxay xaaladina maxay ka khaldan adigu wallahi process-ka san ugu darnaa hatta ninkii gabadha qabay la soo hadlay maxay tahay sheekadan aad gabadhayda isku soo dhijinaysaa ninkii wuxuu noo qabay inuu anagu intaan isku soo dhijinay ma waqti aan TikTok leedu soo dhignay ilaa daanu qalcino kuna warnaadeer TikTok tan tayadiina maaha barnaamijkana dad baa soo dhigay de waxaasna waa ceeb inaan anagu soo dhigana moogti marka wallahi waqtigaas ay ugu hawl badnayd alaankaas la weydiiyay la yiraahdo reede iga horinta baashidayna marka wallahi waa wixii igu la yaabka badnaaba hadii social media ana ku soo jiray soo joog Cabdi Cali Khan maalintee kuugu farxad badnayd يا والله تي مالمو فرحت ويقول لكن كلا فرحت بدن مالي كان 1 مليون حراي أم يعني فرق بدل دوني بوها مالي كأكون كيو كيدي إسك بدلوا ما إسك بدلي مالي كأسايقو فرحت بدن وشعورت إذا أنا مالين يعني سيدو هركدو أنت عبد الرواية سيدات كوهشان أما حاجات ديريك أنت كهشان inspiration نيو إن waxaa jirta horta riwaayadahan aan metelnaa mararka qaar baan dadka maqalnaa oo aan qof ka metelnaa ibka si kilib yar oo bari waxaa jirta oday weyn baan aragnay markaa anagoo dukaan joognay anigeena ku dhoo dukaan markaa wax ka iibsanayna waxaan aragnay oday weyn oo ilaa meelaha dhowr iyo 70 adigu 80 qof aad u weyn kadib saan isku lahayn wax kala iibsanay wili si sigaarka قصان كل هذا السجار كماس كديس أنا أمريكا كل هذا السجار كماس كديس بحكوا عافمات كانوا مو ناكسرين بركاسول وار ما وقهرني تاني ويدينه ضيق السجار كمان كويا غالي وحنقول هذا السجار كميس كديسي أنا أمريكا سؤال شهر ويديو بركاسول ها هذا السجار كور هو بلاي وعافمات كانوا مو ناكسرين قاب كسوي كشيكي كدي مركز سائل الحمد لله هدي له هيك هم دوبي هاي يقولوا مركز سكوش اللي أنتوا لا صباحي يقولوا أربليدي وعبركي marka kan dukaanka ay isku garanay Camar anuu isleeyahay Camar kan uu sanaya waa maxay ayba dhur sigaar oo beesel loo soo dhigay soo kula hadal bahalka wali soo diganaa iska deyn waar anagu waxaan ka dhiganaa oo subaga gaariga iyo waxa waxaan naga celiyo waxaan waa Camar miyaa la deyn karay marka halkii baan aniguna clip ka sameynaa marka waxa jira clipyo badan oo dadka aan maqalno markaan maqalno aan ka sameyn oo iyo clipyo manaawaal markaan ku tul malaawalno aan sameyn saasoo kala baxan clipyada Cabdi maanta hadii lagu yiraahdo wax dooro maxaa dooran lahayd in hooyaday macaan la noolaado إيه هويدا لما نولد والله نولد عبد حكيت عشان تكون نوراته نولا شاطئ تكلمه نيو خط الصوماليين بعض فانسا ودن كنا ذا الله هذا الصومالي ده أضيف فانسا صباح بلطينا كأكل سنة ولا ذا بين بريطانيا
insha allah haddii ilahay dha nolosha sawir noocay ah baad ka haysataa wallaahi dee niyow nolosha horta hadba waa sidaad ka dhigto noloshani waxa la idhaha waa halkaa labadiisa keli moogta noloshu waa howlo badanta noloshu uma baahna nin jilicsan nin hadhawo kale u baahan tahay nin shaqadiisu ay adag tahay bay u baahan tahay mar kasta oo aad nolosha shaqo adag ka bixiso waa mar kasta oo aad guuleysanayso markaa noloshu waxaan ka aaminsanahay qofka adaygula taga inaanay wax adayga tusin laakiin qofka u seexda isku jilciya inuu noloshu dul kartaa aan ugu aaminsanahay noloshu fuushaba markaa noloshu intaa ku fuulo adigu kor weeyaan xagga sare uga bax markaa noloshu waxa weeyaan waa qof shaqaynaya u baahan cabdi nolosha haddii lagu odhan lahaa hees ku cabir maxaad ku cabiri lahayd hees nooceed ku cabiri iyo heesta waxaan ku cabirayaa adduunyada nin dhoofiyo ninkii tagan dhulkii hooyo nin daragiyo nin dhowrqaday andheefayn dhadigiyo laboodba hawli kama dhammaatee dee xasuus horeen ku geliya xataa adiga mayaanu heesta adumaan kula jiibinay dharkan aad xidhataan siiba adigu u codee kulmiyaad xidhato yaa idii dooro dharkan ama idii diyaariyey oo maxaa la yidhahdaa idii soo xulay waa su-aal aada u muhiima waa niyow dharkani waxaa jirta waxaanu sameynaa dharkan horta waxaanu soo xulnay adigu 21kii meelahaas nuku dhana 23 ilaa 24 buu isaguna xidhanyay dharka markaa horta dharkaas waxaan usoo xulanay hal system markaa waxaan sameeyaa mararka qaar garankan aan xidhanay waan bedelaa oo shirkadaan u saara iminka shirkad 2 shirkadood baan u saaray furabaraan oo kale mar baan garanka 3 bilood aan u xidhnaa shirkad dhakhtar ilkood company isagana 6 bilood baan u xidhnaa markaa muhiimaddu waxa weeyaan shirkadaha doonaya laftirkooda in garan loo xidho in macnaha iyaga laftirkooda garanka xayisiisu noqdo oo loo barto qaabkaas umaan u xidhanaa kulmiya markaa ma isaga idii kuusoo dhiibay garankoo ii xidhay ku yidhi mise adiga iska xidho doorta ay adigu waxa weeyaan garanka waxaan ku doortay on markii horreysay garamadan yara eegay garamadayda ka saameynta leh ee magaranaysaa ee waqti xaadirkaa sii duugoobay markaa garankani gurigu yaalay markaa waxaa yidhi garankana isagu saameyn yeelan doona si aad ku xidhnaanaysa markaa si kale oo aan u xidhay iyo kulmiya oo ka dambeeyey iyo process kale ma jiro anigu baa iska xidhay markuu aan garan xayisiis soo dhaco la saarana waan xidhaa markuu xayisiiska waqtigiisa u dhamaadana isagii inoo meel yaalun baan dul haddana usoo xidhaa markaasaan shaqadiisii kusii kala markaa sidaa ma odhan karaa waxaa tihiin mucjisada tiktok iyo wallaahi dee kolley waxaa jirta dadyo fara badan oo laftirkooda halkan iyagu saameyn kule way jiraan laakiin haddana saameynteedu ma yara ma jira cid aad ku dayato oo tiktok isticmaasha may wax dee uma malaynayo qof barnaamijkayga soo gudbiyo oo jiraba tiktok intaa waxay noogu eeg barnaamijkeenii waxaan asxaabta ka codsanaynaa inay like share iyo comment ba intaba ku yaacaan aad maxaad oran lahayd cabdo insha allah asxaabtu qof walba kolle comment gaar u soo dhiibanaya wixii aragtidiisa buu soo dhiibanaya warjanankana ha lagu soo biiro hala dareemo inuu oday weyn soo dhex fadhiistay hala yiraahdo mujaahid weyn baa soo dhex fadhiistay aad baana dhamaantiin idin wada salaamaya waa gurigeenii labaad oo kana ha lagu soo dhawaado saaxiibaya